بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Dr. Faadil Maxamed Ismaaciil wacyigelintani waxay ku saabsan tahay xanuunkan adduunka ku faafay ee loo yaqaan COVID-19 ee uu sababo viruskan loo yaqaan SARS coronavirus 2 markaynu joogno goobaha bulshadu ay isugu yimaadaan ama goobaha shaqada ee dadku ay isugu yimaadaan waxaynu u baahanahay inaan nafteena iyo dadka kale aynu ka yareyno ama aynu ka hortagno faafitaanka xanuunka haddaba waxaa jirta siyaabo kala duwan oo ay waajib tahay inaynu qaadno si aynu u yareyno faafitaanka xanuunka ama inuu anaga nagu dhaco ko waxa kamid ah in mar walba gacmaha la meero oo faraha la dhaqo ayaa ugu muhiimsan mar walba waxa kale oo aynu raacin karnaa haddii qofku helayo alcohol gel oo aad uga fudud in mar walba qofku helo meel ku farxasho laakiin kaas uu gacanta ku qaato waxa kale oo jirta haddii qofku maxay qufacayo ama uu hindhisayo inuu gacantiisa uu ku hindhiso haddii kale uu isticmaalo Kleenex ama tissue ama soft kolba sidan u naqaano haddaad aragtid qof uu hayo calaamadaha hargabka hadduu leeyahay qufac maxay xumadoo kale ka fogow ugu yaraan 2 mitir ka fogow qofkaas isagana u sheeg inuu tago goobta caafimaad ee ugu dhow salaamaha badanna inaynu iska yareyno oo qofka markaynu salaamayno aynu salaamu calaykum aynu ku yiraahno laakiin salaamaha iyo gacanta inaan iska salaano la yareeyo taasna hal ku dadaalo insha Allah qofku hadduu isku arko calaamadaha duriga oo kale ee qufacu ka mid yahay xumad neefto ku adkaata waxa fiican inuu qofku guriga u joogo ilaa intuu kala daanayo dadka kale guud ahaan bulshadana waxaynu faraynaa inay yareeyaan tagitaanka meelaha xiran ee la sugu yimaado sida eventyada aan muhiimka ahayn xafiisyada kale haday aad ay u yaryar yihiin oo very congested yihiin oo kale la iska ilaaliyo in meelaha furan ee hawadu ventilation iyo isbeddelka hawada uu ku badan yahay meelahaas mar walba la tago meelaha